بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. كسو دواada Safi channel oo aan kaga hadalno waxyaabo badan oo faa'iido u leh bulshadeena. Maanta waxaan idin la share gareynayaa videogan oo aan idin ku tusi doono sidii aad gurigaaga ugu samaysan lahayd granola oo ah cereal laga sameeyay waxyaabo natural, organic and healthy ah. Granolaha maanta waxa aan ka sameyn doonaa maxay to roll oatska waxaan ay dhahaan oo ah boorashka waaweyn iyo nuts kala duwan oo maxay ahayto kulligood organic ah iyo malab xaq sokor kuma darayno malab aan isticmaali doonaa iyo coconut oil. Marka waxyaabo badan oo nafaqo badan iyo faa'iido badan leh ayaan ka sameyn doonaa granolahaas. Arrintan granolaha waxa idin la share gareynaya waxay tahay hadda ka hor ayaan ka hadlay another video dhibaatooyinka cerealka suuqa yaala iyo sonkorta ku jirta iyo dhibaatada ay carruurta u leedahay hore in kala hadlay. Marka videogaas aan soo galiyay meesha dad badan ay ila soo xiriiray oo i weydiistay inaan ka hadlo ama inaan idin tuso sidii aad gurigiina ugu samaysan lahaydeen cerealkaas. Marka cerealkii waa kana maanta ila daawada wax kasto aan ka sameynayayna arka kana faa'iideysta oo carruurtiina u sameeyay kagana maarma qashinka suuqa yaala iyo sunta suuqa taala. ila share gareey waa kana videoga daawasho wacan. Bismillahir Rahmanir Rahim. Marka hadda granoli aan sameynaynaa ama cerealkii ingredientkii aan ka sameyn lahayn waa kana waxa weeyaan almond nusbakeri almond ah, nusbakeri cashew nuts ah, nusbakeri hazelnut, nusbakeri walnut, nusbakeri sunflower seeds, nusbakeri desiccated coconut. Intaas waa nutskii iyo seedskii. Waxaan kaloo u baahan doonaa hal bakeeri oo malab ah. Kan bakeeri waa ka yar wax ku kala ku dhameystiri doonaa. Kana ku dhameystiri doonaa. Waa organic labadaanba hal bakeeri oo malab ah. Iyo waxaan u baahanahay hal bakeeri oo maxay ahayto hal bakeeri oo coconut oil organic ah. Marka intaasaan isku dardaraynaa iyo ugu dambeyntii waxaan u baahanahay hal kiilo oo maxay ahayto organic jumbo oats la yiraahdaa. Boorash weeyaan in a way laakiin boorash marka jumbo oats kan waa boorash laakiin boorashku waa ka yara waaweyn yahay. Marka roll oatsna waa la dhahaa, jumbo oatsna waa la dhahaa. hal kiilo intaasaan isku daraynaa. ovenka la yara gelin doonaa. Marka saan isugu darayna waxay tahay hadda nutskan oo dhan aan meesha keenay kulli waa tumayaa laakiin ma raba inuu budan noqdo, mashiinku ma shiidayo. waxaan rabaa inaan mooyaha ku tumo oo macnii asagoo aan aad budo u ahayn ayaan isticmaali doonaa. markaan tumaa idin tusi doonaa siduu u ekaado. marka loosiyaashi waa kuwaana aad uma jajabinin, mashiinku ma shiidin. waxaan ku shiiday mooyaha iyo kashaas yar aan ku garaacay because mar rabi dooq ahaan aniga mar rabi inay aad u burburaan saas inay u kuskusnaadaan oo gooska uu heli karaan rabaa. marka qof walba dooquu leeyahay daarta adiga kaaga mashiin waa u isticmaali kartaa, waa ku shiidi kartaa. marka aan isku dardarna alaabteeni loosaskii kaas waxa weeyaan waa cashewgii oo half a cup ahaa, almondkii oo half a cup ahaa asagana saasaan u jajabiyay. kulligood waa kuskuusan yihiin aad uma shiidin uma tumin. kan waa walnutskii half a cup, hazelnutkii oo half a cup ah, kan waa coconut desiccated coconut qumbo la qalajiyay nusbakeri. kanna waxa weeyaan sunflower seeds asna nusbakeri aan ku daray. marka arrinta kale oo aan idin sheegay waxay tahay kuma khasbanidin loosaska noocyadan ah ee aan isticmaalay inaa isticmaashaan. qof walba dooquu leeyahay. haddaa rabtiin aniga hadda waxaan isticmaalay waa 4 loos oo kala duwan.
هدارتين لبر لوس واستعمالي كرتان هدارتان صدح لوس استعمالي كرتان sunflower seed كان dadka qaar ma jecla wax kala ku bedeli kartaan ama waa ka tagi kartaan qumbaha qasab ma aha hadaartiin waa ku dari kartiin hadaartii waa ka tagi kartiin waa adiga dooqaaga alaabooyin kala jira loosas kala jira waxaa jira maxay ahayd sunflower seed ka ma ahane pumpkin seed mid la yiraahdo asna jira qof walba iyo dooqiis asaga yaqaan dadka qaar waxay isticmaalaan dry fruit like sabiibka oo kale maxay too dry apricot oo kale fruutooyinka dryga oo dhan waa isticmaali kartaa waa qof iyo dooqiis annaka laakiin ciyaalkayga ma jecla sabiibka iyo dry fruitka marka nutska aad u jecel yihiin saasaan nutska u badsaday nutska marka inta aad ka qaadanaysid waa adiga iyo dooqaaga wax yar waxaan ku darayaa maxay too cinnamon organic cinnamon oo carfis ah hadaarti waa ka boodi kartaa waa un ku carfinayaa bahalka hadhow marka la dubo caraftiisa waxa waaye xaafada oo dhan uu qaadanayaa guriga iyo iska daayay agagaarkiisu ka soo carfayaa cinnamonka marka iyo lowska ovenka la isla geliyo kana waa organic maxay too vanilla wax yaraan ku darayaa asagana waxaan oo dhan waa carfis waaye kuma qasbanid waa waxa ka boodi kartid waa ku walaaqaysaa waxaan haysanaa marka halkaan aan ku haysanaa sidaan hore idinku sheegay hal bakeeri oo coconut ah saliidda qumbaha waatana qasab ma aha baraankan aniga marba baraanka raqiiska oo ofarka ahaan soo gataa different brands aan isticmaalay inay organic tahay una muhiima midii ofarku ah oo ku jabanaad qaadanaysaa waa inay organic tahay hal bakeeri oo coconut kan ah iyo hal bakeeri oo malab ah organic qasab ma aha baraanka in isticmaashid malab organic ama haddaad farmers market aad ka soo gadan qaadan kartidna waa fiican yahay marka maxay ahayto alaabtan loosaskan aan ku qoynayaa malabka iyo saliidda sonkor iyo wax kale uma baahnid malabkaas bakeerigaas malabka ah waxaas oo dhan macaaneynaya sonkor oo dhan ma isticmaalaysid dishkan waa dish very healthy ah caruurtaydana aad ay u jecel yihiin kuwiinana waa jeclaan doonaan saan qiyaasayo marka aan sameeyo waa like treat oo kale like anoo wax macaan oo special sameeyay ma xasuusatiin Soomaaliya markaan joognay iida markay soo dhowdahay buskud la sameyn jiray oo farxi jirnay marka buskudka iida la sameeynayo waa saas oo kale markaan kan sameeyo weekii maraan sameeyaa ciyaalka aad ay u jecel yihiin safdeena loo soo galaa dhaqsaana loo dhameeyaa marka hadda waxaan ku daraynaa boorashkii tartiib tartiib wax badan aan sameeynayo aniga maxaa yeelay guriga waa maasha allaysan yahay waa yara badannahay weegiina maadaama aan mar kaliya sameeyo marka xooguu noo yara oolayaa 2-3 bari meelahaas ka badan nooma laas gareeyo saliidda tartiiba ugu dardaraysaa iyo malabka la isku jiro kana tartiib si uu dufanka iyo malabka uu kulli u wada gaaro kulli waa wada gaarsiinaysaa marka hadda wixii waa kana waa isku wada qasnay oatiskii iyo lowskii iyo saliidii iyo malabkii kulli waa qasnay waxaan ku shubaynaa dishkaan aan ku shubaynaa si aan ovenka u geliyo oo u dubo marka waa kaasa ovenkan gelinayaa 40 daqiiqo 40kaas daqiiqo laba goor aan soo saari doonaa walaaqi doonaa kadibna waa idin tusi doonaa sida uu ku soo baxo 40kaas daqiiqo ovenka ku jiro
markuu adiga 15 ilaa 20 ku jira soo saar walaaq haddana ku celi laba goor uunad walaaqaysaa 40kaas daqiiqo marka waa tusi doonaa siduu ku soo baxo insha Allah marka granola waa kana markaan dubay 40 daqiiqo intuu dubayna laba goor aan soo bixiyo walaaqay saanu ku soo baxay waa very crunchy dhadhankiisana hore idinku sheego waa fiican yahay nafaqo badan uu leeyahay because lowska protein badan laga helaa marka hadda waxaan ku shubaynaa dhalaan ku shubaynaa marka granola waa kana dhaladaasaan ku shubay of course dhala kalena waa ku shubi doonaa laakiin hadda dhaladana idinkeedin tusaayaan ku shubay dhaladan waa ka badan yahay laakiin waa kaasa halkaas laga shubana laga cunayaa marka waxaan rajaynayaa inaad ka heli doontaan haddaad tijaabisaan okay marka hadda waa aragteen sidaan u sameeyay granolaha iyo siday u sahlan tahay iyo alaabtii aan ka sameeyay marka waxaan jeclahay inaad ka faa'iideysateen oo aad samaysan doontaan alaabta mid uuna idin kala dardaarmaya alaabta aan maanta idin tusay kuma khasbanidin inaad ku siday tahay u isticmaashaan waad badbedeli kartaan natiska aad ka samaysanaysaan iyo waxyaabaha aad ku darsanaysaan waad kala badbedeli kartaan choice-ka waa badan yahay choice-kan aan idin tusay oo qura ma aha idinka og waxa caruurtiina jeceshahay iyo waxa aanay jeclayn marka waxaan rajaynayaa videogan idea inuu idin siiyay oo aad ka faa'iideysateen haddaad ka faa'iideysateen ama aad maxay ay jeclaysateen tambis aad isiiya subscribe gareeya haddaad rabtaan wax su'aalo kale inay weydiisaan ama aad ka comment gareysaan xagga hoose ku soo qora idinkoo mahadsan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh